xaqiiqo warano dadka baa la doonaya waxa la huursanayo ee daaha dabadiisa ku jira inaan ka soo saaraa la doonaya tooshkaan ku ifinayna ninkii dood qabo halka kaale dood caafimaad qabto hadal arrinka ka hadal war maanta waqtigeedii sawirka foosha xuno meesha ka baxay ma tahay waqtigeedii ma haboonay mise inta loo dhigtay guusha ka bacdigeediina waxa weey rag ku faakahaysto oo fadha dhaqlayo laakiin waqtigeedii maanta ma ahayn doodayadu halkaas waxa weey salkeedu meel kale ma doonayna hanala aadinina waxa weeye mas'uuliyadda waxa la doonayaa nimankaasi inay goobaha nafwaaga inay tagaan baa la doonaya xaqadu waa sida weey lama doonayo waxa weeye mujaamalo iyo munaafaqad loo baahnaade isbeeskan oo ma soo furana waqti kooban baan haystaa sida duniya sida anigu mani maxkamadda caalamiga ahayd oo dhahaysay dadka kale maxay iyagoo most of the al-shabaab people ay ka soo jeedaan gobolkooda maxay u hadleen ma dhigi karno maxay u taageero dhigi karno waa ognahay familiya gaara ayaa al-shabaab kiriyad gareeyo u dira feeding ah because of adiga fiiri gurigayga ayaan dab ka qaadaya jiiraankan kusoo shubaya gaas iyo dab ana waa farfarisay nabad baa fadhiya dab la'aan baa fadhiya that's what we are feeling laakiin qofkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu arkaa moogta kamaa diinta daan baa la yidhi meesha qof bini aadana maalin dhigto adna way ku imanaysaa ama everyday kaas day weeyaan in koonfur galbeed al-shabaab madax ka noqoto niman waqooyi ka tegay ama jilib ya oo weliba la nooliyo oo laga diro halkan oo weliba sirdoonkooda ay dhahaan annagaa noolinay waxyaalaha soo marnay ka mid tahay laakiin hadda ma joogta halkaas walaashay waxay joogtaa annaga puntland ayaa al-shabaab daacish la dagaalamayna iyo shabaab waxaan tagnay buurihii ugu dambaysaan kasoo bilownay way jirtaa ruul dhahaya shaqada meesha ugu adag kasoo bilowsay marka dambe ay khafiif kuugu noqoto way dhici kartaa daas in politicalka isticmaaleen okay we agree علي علادو قربان إدين سو ساري وحي أربتين إنين سلا قارنو قربان إدين سو ساري وأنا دي كتجي هذا ما لا سعتا مولع يا أحمد ماشي بسوا قرد فيري أنا ما يا فيري دنيا رنتي أنا أشياء نوعي هدي ولا النمي احترام يحكم خلوين زي لوكي وحي أمو قنا يا وروحان حوالها نقدر نسمعه وهذا وحن أي لوكين إنه هو استضرب أو دوي يعني ما سنت thank you روحان نقدر تشيني أنا كم عينايو لكن أقول لا ما أدري أدام معنا بشواد معنا الآن الله هذا شعليه وعيد يخلق حمالة تماده يرد على وشيء اللي يسأليه وحلا يسوشيغو وهذا نكون تقول له استعمال بدكيت ولا هذا حال الشيء يلا هال لعبة ليسوا بندقة هذا ما قرأته وركا واحد صليسان هيرد أنا أدير لقب هيردو ما يبوق برا إنه فروع مردون يكونت إن الشيء ولا لا هذا ما فهمت هيردو دولة بنت لان كده سواء نقان إنسان كتبي عدة حكمتنا وانقان ما نجا قرصنا سفيان ما أنت دجالك سعنا وانقان إيماش لقى صوب بالعن وزير العن بلا أنكور أحسن قلت يعني قلت عنا ماشي على لها وين لوز بعسنا يروان أركان أنا وحكش يقول يلا يسوكريس ما الدنيا you are legitimate أوكي كنت نقول شيء يا مقتنع أنا وانكو أقانا قفل بنا وانقرنا يا يوحي وكسوين يعني وحيران أنا هذا الدنيا وحيران هذا وأكو أحسن هذا بس نقول شيء يا دي سؤال ما نكون راعينا dad kan mawlaca wiilasha ku soo qorto meesha waa ka qaaday wiilashan beenka ay dareemayeen markii masjid cali guduud iyo amaare iyo caws meesha dhahay dooc caloosha la dooxayay inimadooda inta xiran intay degaan shabaab la dagaalamaan inta lagu soo wareegtay gam iyo haram laga dhigayay waxaynu inagu bixinayna ma ogeyd horta I know adeerow keliyaha mara ku xirta dadka dhahayseen way al-shabaabka qabiil la hubaynayay way wasiirkayga lahaa wuxuu lahaa beeluu hubaynaya xasan suka diirid beeluu hubaynaya xasan al-shabaab uma socdo gacantu iska shakaya been weeye intaa hoo 6 bilood ku dhadhow wuxuu ku jira rafasho wuxuu ka kicin karo waa ka kiciyay wixii kalena dee dowlad goboleedka u taala macawisle aan cidna ku xirnay baa macawista dintay xirat macawisle maxaa loo dhahay qaarka sarena fulaanada amta ahaayeen kabuhuna waa kala go'naayeen macawisna way xirnaayeen geeloodii arigoodii qori ku gateen way iska celiyeen dadka istaan bay waxay lahayn waa been waa project dadku what you are feeling they feeling that time marka anigu wiilasha yaryar oo hadda waxaan soo qorayo ma dhaho maxaa u qorteen because I know anigu waa jooga xaadir baahan waa ka dunia waa maasan tahay waxay isla ognahay
waxay duniyay هيرة هل سنة يبربا إسبيس أفرنا بنتلان فيروس وعلى عيني ورقاس هسكح لي هذا رقول سافر تعمل إيه أنا هبين والب واي ما سنتها الدنيا أديك أنا وادي دنيت أنا كان وادي دنا دجالك وحبا كخلدن ولا ديه كرا سان هلا جب الدول السودان ولا ديه كرا تذكر البنتلان دولة نمط الصومالية قعنتك ما هي الصومالي مسؤول كماها لكن مركي هنتدي دولة دكوا قعنتك وهي أي مرن هبابين سماينيان وأي استعماليان تدان إهل أو أهين إن دجال نوع أنا كلا هو لوجيرو والسياسة ذي is unacceptable دنيا corrupted وأنا دونيني وأن دمية هدفير مركان هذلبا وسود بوديسان مبتدأ هيرة دو سوق أدونك هاوش ميلا ولا الكتير هاورن هلو reerka kale dagaalamay al-shabaab waxay ahayn hirshabeelle iyo galmudug aydan anaga kooka ahayn xamar lama dagaalmin hirshabeelle iyo galmudug dhulkooda dadka lagu leeynayo oo lagu dooxayo oo taliyashaha macabiyo taliyayaasha iyo laga leeynayo odayaasha ismada laga leeynayo waynu ku faraxsanayn halkanaynu fadhin aan ka mid maahay laakiin dadka inaga naga mid ah oo hadda yuusaya ya adiga marka waxa laga rabaa adkaysigeena inaan lahaato dadka marka shil aynaysay hawr istaagin dhalinyarada hawr istaagin let them breathe هكذا نفسدان ماشي ربان أديك واحد لقى ربا نينكا دولة دماغ جعنت كوهية أديك عن كاقيب قليل أديك الشباب يدعي شد قالوا كوكو دعوة ولا على يا نوكيري يا حبيب عسل شل الله يا كرسي قال إنه كفرست أصابها الله سبحانه وتعالى كسكو إيد نفتاضة نين بدي جر جعنت أيضا إيد مركان عدي جعنت هذا إيد BDRC إيد لحية الضباط يكون لحية الضباط قفاقات إيه شنو 20 مليون عشوطة إيه واحد أنا بسرعة إيه ما نيجي لك سوق حينيا ودير الدبير لما سوى الخادي كرو حسن باو ديدي إنه دولة دماغ ينصمو of course وأوجدنا إنه ديدي لكن يا صوبي هذا هو حلقة ربعدي كليها مركو حرة رجل ما يديال حين يديال ثاني كوكسو قاعد لتسمي قلب اسكو حرية تيجي قبر يرى أراسة هل كسر وكسر هيا هذا ما ينفع meeshaan wiilashaan ha ku rafan mawlaca ku rafan mawlac waa laga gardarnaa anaa joogay hadday rabaan haddaan la samaysta mid weliba koodii oo kale ahoo la dhaho puntland inta lagu soo qorto habeenka dhow xir hoos laga akriyo ya kaa soo furtaan le war ilmadeeryaalo space joogta soo furta annagaa idiin imanayne wallah runta waxay inii sheegalaada hiirada wallah ka foq wiilashaan mawlaca waa xagee markaa soo shawaray haddaan laydinla hadli karinba horta taasaa dhiba moogtahay aniga hadda waxaa ii soo baxay dunya runtan kuu sheegaya moogta aniga adiga doodaada waa loo qaateen waana ku saxan tahay kuguma diidani laakiin waxaa ii muuqanaya kooxa yaryar oo puntland ka soo jeedo aqoontoodii waa aragnimadoodu aanay dhisnayn in loo isticmaalayo dagaalka ummaddaas ay ku jirto aliya waan is ognaana waxaan ka hadlaya ma aha anigu dad gooni iyo maxay Puntland uga hadli weyday iyo Puntland qaar kamid ah inay jacaylkii la oran jiray naftayda naf bay rabtaa ku dhaxsan wayna ognaha laakiin waxaan rabaa inaynu ka reality sheegno horta waxaynu ka hadlayno inaynu ka run sheegno dadka spaceada inta badan ka hadla haddii aynu leenahay dadka spaceada ka hadla nooma tirsana oo qofkaasi afkiisu ku hadlay de kuwa badan oo Puntland faris u hadlana wana faraha kala baxno marka أنا كوانا دهنا ده أفكودي كهلا لكن سو قرش أنا قاعد هيست مي أنا قاعد هيست أنا هيست سوق ده ما هذا موضوع أنا كسر علينا ملكي ما يسوق هذا ما يستدرج شوارع أنا وحن كهلا يا وحوي أنا وحنو أركاكي دتك أفلق عادية يكي الشباب تاجرة يكي قبيل شلي كم ماجي يكي قبيل كسر دوي السنة يشلي تمركي لده قال مع وسليد كي كسر كذي أنا قاعد حسن شيخ متاجر سنة سياسة ديس لكن the only thing أنا كنت تاجر وحوي الشباب اللي وان لا تاجرية and وان لا دقالمية تاجرتها وان كسي the same way waxaan rabaa dadka marka in bahashan waxa hadda waxaynu gaarnay heer al-shabaab ay gaadhay inayba sidii dawlad dalka ka tirsan ama isteed dalka tirsan xitaa hubkoodii ay noo sheegaan ciidamada ay soo tababaranayeen ay noo sheegaan waaba isteed kale oo baynu ku dhex nool heerka waxa gaarsiiyeyna dadka Soomaali munaafaqada ay isku nool yihiin waxay arkeen dadkan in qabiilo loogu kala hiirinayo dadkan in isteed loogu kala hiilinayo in yaani dadkii Soomaalidu iyagu is haystaan oo la oranayo maanta halkan ay ka dagaalamayaan guriga kama dagaalamayaan qaar lagu eedeynay inay gurigiina joogaan ana waxaa dadka waxa taageera qofkii risiir post gareeya iyo qofkii ku taageera qabiil iyo kii munaafiqnimo kula socda iyo kii aan dagaalkiisa ka run sheegaynin ee raba inuu lacag ku qaato kulligood in meel loogu soo wada jeesto and that's my opinion I'm not saying waa inaad ku hadashaan
tan kale colaad ku lahaana anigu colaad waan iska weydiiyay markaas waxaan dhahaa goormaad reer Somaliland iyo arrimihiina qolka soo qabanaysa taasoo kaftan anay isaga naga dhaxeeya laakiin tan kale anigu waxaan nabcahay qofku siyaasad iyo meel lagu yimaado ha aamino dadku space-ka jooga intooda badan waa shawanjiilayaal iyagiiba al-shabaab post garaynaya halkaanay imanayaan rush hour oo run ka sheegaysa oo state-keedii iyadu wuxuu ku qaldan yahayna sheegaysa wuxuu ku saxan yahayna sheegaysa ayaa loo imanayaa waa lagula daaranayaa marka halkan laga degana waxa la soo dhigayaa post la leeyahay al-shabaab tuumaba yani waa beena waa reeraheena ka leexda waxaas uma ka hadlayaan walaak waa in salaam waan fahmay